arag laakiin hadday qabtaan waxaan qabaaba dan baa ugu jiri doonta jamhuuriyadda Somaliland waxay ka hadlaan de wax Soomaaliya u taala sida idinkuna ka marqabtaan Soomaaliya Somaliland waa laba dal oo kala madax bannaan haddii motion soo saaran de wax iyaga khuseeya iyo intay ka taliyaan ayuunbay de xukuumadda imika de wasiirrabo ma laha moogtahay marka baarlamaanku iyo xukuumaddoodiiba dhismahoodii iyo nabadgelyadoodii arrimahaas u yaala runtii inay kuwa ku mashquulaan bay ahayd laakiin hadday maanta ka taliyaan waxaanu laalaynaa wixii baarlamaankeenu ansixiyay de waa nin waa iska hadlo inay garoon baan u qabaa waxa weeyaan wax saameyn ku yeelanaysa ma jirto hadday saameyn ku yeelatana hadhow waxaan qabaa mid qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland wax weyn soo kordhinaysa ay ku yeelan doontaa siyaasi ahaan saanu aad baan uga xumahay inuu sixir bararku halkiisa ku noqdo xukuumaddu runtii markii hore dadaal bay ka sameysay waxay isku dayeysay inay xakamayso qodobay ka soo saartay qodobadii waxaad moodaa qaarkood inay dabacsanaan ku yimaadeen dabacsanaantaas runtii keeni karta in maaragtay uu ama halkiisa ku noqdo ama sidii la doonayay aanu halka u gaarin xukuumad ahaan mar labaad mas'uuliyad baa naga saaran in dib loo eego oo la dardar geliyo hawlihii iyo go'aamadii wax looga qaban lahaana runtii waa mas'uuliyad xukuumadda u taala waana mid aan aaminsanahay in hawsha dib loogu qabto sidii ummadan wixii loogu ballan qaaday ama qiimaha shilinka kor loo soo qaaday loogu talagalay in runtii dib loo eego oo la dardar geliyo oo wax laga qabto waa mid xukuumad ahaan runtii noo taala xukuumadda uu ku jiri jiray waan u garanayaa xilka marka uu wasiir yahay xilka uu hayo waxaan maleynayaa xukuumadda xil ka ballaaran ayay haysaa oo ay ummadda u igmatay oo ah sidii ummadan horumarkeeda iyo wanaageeda midnimadeeda nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda looga shaqeyn lahaa marka waqtiba uma hayaan inay ku mashquulaan qof caadi ah meel buu tagay muu tagin marka waan ka xumahay doorsaguna inuu taasoo kale de ku eedeeyo xukuumadda mid kale cid qortayna maaha warbaahinta xukuumadda marka de meel uu soo mariyo ma garanayo haddaanu de isagu doonayn inuu sidiisa u maago taasina de wax xukuumadda runtii makadan laftarkeeda waqti uma hayo inaan ka hadlo duur iyo tiisa waayo idinka qudhiina wax badan oo faa'iido ka badan ummadda aad u gudbisaan oo maaragtay aad weydiisaan baa ayaa taala marka taa waxaan odhan lahaa waa waxba kama jiraan duurna waxaan maleynayaa intii mucaaridkaabay wax badan hoos mareene te uu garanaya xukuumadda markuu ku jiray hawluhu hayay uu qaranka u hayay iyo waxyaabuhu de markaa waqti siinaya iyo waxaan waqti siinaynin marka runtii maaha arrin xukuumadda loo nisbeeyo arrimahaas oo